bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono waxyaabihii uu qabsoomay muddadii sanadka ahayd ee aan soo dhaafnay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid inagoo barnaamijkan ugu dhabagali doona dhammaan guulihii ay gaartay xukuumadda waxyaabaha uu qabsoomay iyo saameynta ay ku leeyihiin horumarka wadanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay jirsatay muddo ka badan sanad hase yeeshee sanadkii aynu soo dhaafnay waxa la isweydiinayaa guulaha ay xukuumaddu gaartay iyo saameynta horumarka wadanka uu leeyahay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa 6 Oktoobar 2012 waxa loo magacaabay xilka Ra'iisul Wasaarenimo ee Soomaaliya iyadoo waqtigaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu ku xushay in uu buuxiyay sharuudihii loo baahnaa waxa sharaf ii ah maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Oktoobar 2012 in aan helo kalsoonida madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in aan ummadda Soomaaliyeed u qaado xilka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo ah mas'uuliyad ballaaran oo aan rajaynayo in aan u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin dalkeen waxa uu marayaa marxalad taariikhi ah oo u baahan aragti istiraatiijiyadeed oo ku salaysan horumarinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyo qorshooyin siyaasadeed ee cadcad isla markaana ay horkacayaan tiim hufan oo aqoon iyo karti u leh hirgelinta iyo himilooyinka ay hiigsanayso ummadayadu mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin waxaan ballan qaadayaa inaan soo dhiso muddo kooban xukuumo tayo leh oo u horseeda dalka nabad iyo horumar taasoo ku imaanaysa wada tashi aan la yeelan doono madaxweynaha xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
mudana madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin qorshaha siyaasadeed ee xukuumadda aan soo dhisi doonaa waxaa saldhig u noqon doona tiirarka 6 ahaa ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyaddu. xukuumaddu waxa ay noqon doontaa mid aan u dulqaadan doonin musuqmaasuqa, eexda iyo wax isdabamarinta. mudana madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan ballan qaadayaa in xukuumadda aan hoggaamin doono ay dhinac iska dhigi doonto khilaafkii ragaadiyey xukuumadihii naga horreeyey, isla markaana dib u dhac ku keenay waxqabadka laga filayey. magacaabista kadib ayuu ra-iisul wasaare Shirdoon soo dhisay golo wasiiro oo ka kooban 10 wasiir, taas oo markii ugu horeysay dawlad Soomaaliyeed soo marta, waxaana magacaabista wasiirada si buuxda u taageeray shacabka Soomaaliyeed ee gudaha wadanka iyo dibadda ku sugan, iyadoo qaab dhismeedka xukuumaddiisa uusan ku salayn ra-iisul wasaare Shirdoon nidaamka 4.5 oo ah awood qaybsiga qabaa'ilada Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo golahiisa wasiirada ayaa isla sanadkii la soo dhaafay ka howlgalay shaqooyin tiro badan. tallaabadii ugu horeysayna waxa ay noqotay oo xoog lagu saaray arrimaha gudaha sidii wax looga qaban lahaa iyo la dagaalanka argagixisada, iyadoo ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada ay socdaal ku tageen gobolada koonfurta Soomaaliya inta badan. waxaana safarkii ugu dambeeyay ee aan isxasuusanayno uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubno mas'uuliyiin ah oo la socday ay ku tageen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay Xaruntowa, isagoo halkaasi u tagay sidii uu soo dhageysan lahaa baahida bulshada gobolkaasi ku sugan. waxay uu kamid ahaa safarkan koobani safaradii dalka Soomaaliya oo dhan aanu ku tagaynay oo aanu ku dhageysanaynay dadku wuxuu qabo kuna soo eegaynay xaaladda ammaanka, xaaladda ijtimaaciga ee dadka iyo baahida dadka yaga iyo waxa dadka yagu qabaan. safarkan aanu tagnay wax badan baanu ku soo baranay, wax badan baanu ku soo dhageysanay, raalli baanu ka nahay dadkii aynu soo aragnay sida ay isugu tashanahayaan oo ammaankooda iyo horumarkooda ugu hawlgalahayaan iyo sida la yaab kale oo u garab taagan yihiin dawladooda. wax fiican oo badan baanu ku soo aragnay. sidoo kale waxaanu shaqo qurux badan ku soo aragnay iskaashiga ciidamadeena iyo amisoomta Baydhabo joogta oo ayadana aad raalli uga nahay. waxaanu aragnay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee Baydhabo gobolka Baay baanu aragnay. waxaan la yeelanay kulamo dheer oo aynu ku dhageysanayno waxa qorshaha dawladdu yahayna aanu uga waramayno. raalli baanu ka ahayn dhammaan wixii aynu soo aragnay, wixii nagala gudboonaana waanu ku dhawaaqnay. dhanka amniga haddii aan ka hadalno guulaha ee xukuumadda ka gaartay la dagaalanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo dagaalka tooska ah looga adkaaday ayaa sanadkii la soo dhaafay guulo waaweyn laga gaaray, iyadoo ciidamada qalabka sida ay ka hortageen in ka badan 50 weerar argagixiso. dhanka kalena waxa ay sameeyeen howlgallo si qorsheysan u dhacay, guulana laga gaaray, waxaana gacanta lagu soo dhigay rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo hadda cadaaladda sugaya. sugidda amniga iyo xasilinta dalka waxay xukuumaddu dib u dhis ku samaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, waxayna dejisay qorshe 4 sano ah oo ku saabsan arrimaha nabadgelyada iyo maamulka. xukuumaddu waxa ay heshiis dhinaca tababarada ah la gashay wadamo aan saaxiib nahay, waxaana koobtay ciidamada ku sugan gobolada dalka ee aan horay maamulka uga jirin. waxaan si nabadgelyo ah loo qaaday dhammaan isbaarooyinkii yaallay gudaha iyo dibadda magaalada Muqdisho, kuwaasoo gaarayay 60 isbaaro. waxaa dib loo qoray xaaladda cusub ee dowladnimada Soomaaliyana la waafajiyey qorshaha amniga iyo xasilinta qaranka oo loo yaqaan NSSP. waqtigan aan idinla hadlayo wax wuxuu dayactir ku socdaa gudaha ciidan ee kala ah kulliyadda jaalasiyaad, kalada guulwadayaasha iyo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed. xukuumaddu waxay socdaallo shaqo
oo uu turgal iyo kalsooniyisida ku kala bixisay inta badan ee dalkeena. La dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada. Xukuumaddu waxa ay diyaarisay 10 xarumood oo 4 ka mid ay furan yihiin oo lagu dhaqaaqay dhallinta ka soo laabtay al-shabaab iyo kuwa dagaalada lagu soo qabtay. Waxa ay xukuumaddu abuurtay guddiyo culumaadudiin oo ka shaqeeya wacyigelinta dhallinta sida khaldan looga dhaadhiciyey diinta. ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada AMISOM waxaa u suura gashay inay la wareegaan deegaano badan oo ka tirsan gobollada Baay, Garo, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Bakool. xukuumadda uu ra'iisul wasaare Shirdoon hogaamiye waxay si isdabajooga u qabatay shirar gaar ah oo amniga Muqdisho iyo istiraatiijiyadda xasilinta gobolada dalka Soomaaliya looga hadlayay waxaana laga soo saaray qodobo kala duwan oo amniga lagu xoojinayay. xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal badan u gashay sanadkii tagay arrimaha dib u heshiisiinta oo ka mid ah qodobadii uu ballan qaaday ra'iisul wasaaraha markii la magacaabay. haddii aan si kooban u guud maro waxaa guul weyn laga gaaray sidii la isugu keeni lahaa loona heshiisiin lahaa dadka deegaanada Jubbooyinka si loo xaliyo arintaasi ayaa 27 Agoosto ee sanadkani waxay xukuumadda heshiis la gaartay maamulka ku meel gaarka ee Jubba kaas oo ugu gol xarayay shirweynihii dib u heshiisiinta ee magaalada Muqdisho lagu qabtay iyadoo dawladda Soomaaliya ay garwadeen ka tahay isla markaana ay ka qayb galisay qabaa'ilada deegaanada Jubbooyinka heshiis waarana laga gaaray. sidoo kale waxaa meel wanaagsan maraya wada hadallada u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland oo bishii 3 ee sanadkani ay wada hadallo ka dhaceen magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. heshiis 7 qodob ka kooban lagu gaaray dhanka dib u dhiska dalka adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka ayaa dib u soo noolaanayay iyadoo shirar arrimahaasi ku saabsan ay ka dhaceen gudaha dalka welina ay socdaan qaarkood tan iyo markii ay burburtay dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya 1990 ilaa iyo dawladihii ka dambeeyay ee ku meel gaarka ah dalka ma uusan lahayn wax sharci ah. markii ugu horeysay ay golaha wasiirada Soomaaliya waxay soo saareen shuruucda wadankani lagu hagi lahaa oo loo gudbiyay golaha shacabka si ay u meel mariyaan shuruucdaasi. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxyaabaha ay sida cad ugu guuleysatay waxaa ka mid ah kobaca dhaqaalaha dalka uu gaaray iyadoo markii ugu horeysay bangiga dhexe ee Soomaaliya uu awood buuxda u yeelanayo in uu maamulo dakhliga dawladda Soomaaliya waxaana si joogto ah arintaasi control ugu sameeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo oo sidoo kale ay jiraan wajiyo cusub oo qorshaha maamulka lacagta dawladda Soomaaliya loo sameeyay. public finance management reforms aan ku sameynay siyaasadii aan ka qaadanay oo la gaarsiisay si caalamku aamini karo annaguna aan ku kalsoonaan karno shaqaalaheena inaanu maanta u bilowno qaybtii ugu horeysay wasaaradda maaliyadda. hadda ka hor annaga oo khasnadda Soomaaliyeed gebi ahaan ay ka bilaabanayso waxaanu ballan qaadnay si joogto aan u bixinayno muddooyinkii la soo dhaafay shaqaalaha ciidamada mushaaraadkooda oo dhan. maanta halkaan waxaanu ku bilownay shaqaalaha kaydka mushaarkiintooda oo fasilitiga SFFta aan ugu wado. waxaan rajaynayaa qaabka noocaan oo calaamad u ah sistamkii dawladdu inuu dib u soo laabtay shaqaynahayo muddo ka yar 9 biloodna hawshaan inta lagu bilaabay ay hadda halkaan marayso waa guul. horumarka ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa uu soo jiitay indhaha wadamada saaxiibada ah ee Soomaaliya iyadoo ay ka bilaabmeen magaalada Muqdisho duulimaad caalami ah. dhanka kale waxaa la casriyeenayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa waxay xoog saareen dib u dhiska ciidamada qaranka tababaradooda sare u qaadida niyad dhiska ciidamada dhinaca kale la socodka dhaqdhaqaaqa ammaanka lagu sugayo ayuu ra'iisul wasaare Shirdoon kormeer joogto ah xilliyada habeenka ku sameeyay taas oo wax badan ka bedeshay howlgallada hay'adaha ammaanka qaranka. sannahay inaanu saacadan 12 iyo 20
aan si xorriyad leh u wareegayno magaaladeenni aan jeclayn ee xamar oo ammaan ah oo wax badan oo la sheegayay jidkii sodonka ka badqabta oo dadkeedu faraxsan yahay inaan la qaybsanno aad baan ugu faraxsannahay muddo ku dhowaad sanad ayay guddi u saartay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidii ay uga shaqeyn lahaayeen arrimaha xuquuqul insaanka, xorriyatul qowlka, la dagaalanka kufsiga, waxaana Muqdisho ka dhacay shir ballaaran oo lagu soo bandhigay geedi socodka ilaalinta xuquuqul insaanka Soomaaliya. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa magaalada Geneva ee wadanka Switzerland uga qayb galay shir xuquuqul insaanka looga hadlayay Soomaaliyana waxaa lagu amaanay doorka ay arintaasi ka qaadatay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sanadkii aan ka soo gudubnay waxa uu safar lagu xoojinayay xiriirka dalalka dariska ah ku tagay dalalka Ethiopia, Djibouti, Burundi, Uganda iyo dalka Yemen. dhanka kale waxaa jira shirar caalami ah oo adduunka Soomaaliya uu ku taageerayay shirkii London ee ballaarnaa caalamigana ahaa Soomaaliya sida weyn loogu taageeray shirkii ugu ballaarnaa ee New Deal ee Brussels wadanka Belgium ka dhacay Soomaaliyana loogu yaboohay 2.4 bilyan oo dollar iyo shirkii ka dhacay magaalada Fukushima ee wadanka Japan ee Soomaaliya sida ballaaran sidoo kale loogu taageeray. intaasi waxaa sii dheer aqoonsiga caalamiga ah ee Soomaaliya ay siiyeen adduunka dawladaha Mareykanka iyo sidoo kale midowga Yurub kadib safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tagay wadanka Mareykanka iyo dadaalkii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya u gashay in ay guulo badan ka keento xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya. madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si ka bedela madaxdii dawladihii ka soo shaqeeyay wadanka u wada shaqeeya iyadoo aan wax khilaaf ah soo kala dhaxgalin madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo si joogto ah u wada shaqeeya. haddaba waa maxay waxa ay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sanadka labaad hiigsanayso? siyaasadda dibadda waxaan aragnay si fiican inay u socoto waayo sababtoo ah waxa caalamka safiirka ka soo degaya dunida ka imanaya ma aysan jirin dalkeena laakiin siyaasadii ay xukuumaddu ku guuleysatay ee waday ilaa heer madaxweyne la waday uma keentay in maalin walba ay safiiro iyo dawlado waaweyn oo maanta xintiraan aan ku leeyahay adduunka inaan ka mid nahayna ay aan galay basishkii aan lahayn dib ugu noqonay way sababtoo ah waxaad arkaysaa in dhismo aad u qurux badan uu ka socdo magaaladii laamiyadii la dhisayo magaaladii guriyihii la dhisayo wadankii dibadhis uu ka bilowday jidadkii oo la samaynayo shirarka faraha badan sida shirkii ugu horreeyay ee garsoorka kii ku xigay higsiga siyaasadda kii ku xigay ahaa culimada kii hadda ugu dambeeyay hadda la qabanayay ah dib u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka oo kale kan shirweynahan heer qaraanay oo maanta socda wasaaradda caafimaadku ay wado ra'iisul wasaaruhu uu furayay marka waxa dambe ummad isdhexgalka bulshada bulshada laga keenay hadda 18 gobol ee Soomaaliya dadka waa laga keenayay waxa shirkii ugu dambeeyay hadda aan ku arkay Jubbooyinka inay 30 sano xamar ma arag Soomaaliya joogo gobolada Jubbooyinka uu deganaa Kismaayo joogay 30 sano xamar maanta ay ugu horeysay waxa keenay fursad baa la helay in ummadii la isu keeno caasimadii la keeno shirar lagu qabto dib u heshiisiin lagu qabto barnaamijyadaas oo dhammaan waa barnaamijyo ay xukuumaddu waday xagga kale inay shaqaalihii wada ognahay shaqaaluhu waxay ahaayeen guna la siin jiray shaqaale rasmi ah oo joogta ma aysan ahayn xuquuq ma aysan lahayn
caqabadaha iska jiray fara badan oo wasiirka yimaadaaba intii hore daadiyo ku hor la keensanayay hadda qofkii shaqo rasmi ah qof walba wuxuu wataa aqoonsi iyo kaad oo toos xaquuq ku yahay inuu shaqaalaysan yahay oo toos u doonanayo mushaharkiisa bangiga ID cardkii shaqaalaha uu haysto bangiga mushahaaradii laga bilaabay grade lagu kala xulaayo shaqaalihi anigu waxaan taagnaa maalin wasaaradda caafimaadka nin ka shaqaynaya shahaado jacadeed wati dugsi sare wati wuxuuna qaadanayay mushaharka sanadkii wuxuu ku qoraa waardiye markuu keensaday shahaadooyinkiisii oo goob joog baan waxaan fadhiyay xafiiska gudoomiyaha shaqaalaha Cali Dheere shahaadadiisii uu leeyahay dugsi sare waliba heer caafimaad isla markiiba grade B baa la siiyay mushaar fiican buu qaatay aad buu qofku farxad waxa gashay caadi ahayd waan weydiiyay markii hore hadda seeba tahay baan ku weydiiyay isaga laftigiisa waraysi la yeeshay waliba curyaana buu ahaa oo dhalinyaro ah kuli shalay ma aanan hayn shaqaale iyo qof mushahar qaata way sabtaan aqoon leh baan waxaan qaadanayay $100 oo waliba wardiinimo la igu siinay maanta qof shaqaale oo xuquuq leh oo mushahar fiican oo grade B ku qanacsan baana marka waxa weeye waxyaabaha ay qabatay xukuumaddu weel gunta laga soo unka taas ayaa kamid ah waxyaalaha ay hiigsan karta dawladda Soomaaliya run ahaantii inay samayso maadaama hadda doorashooyinka kale markaan dhahno ama federalismka oo kale taasoo kale inay ku guuleysato waan rajaynayaa dawladana ay noqoto dawladda ugu dambaysa ee aan la soo dooran balse ay doortaan shacabka Soomaaliyeed inay noqoto ayna wadamo caalami ayna dooran ama hay'ado gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah ayna dooran dawladdan waxyaalaha aan ka rajaynayna ama aan doonayna inay ku guuleysato waxa kamid ah inay noqoto mid ay shacabkeeda dawladaha ku xigta ay doortaan isla markaasna ay doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo sidoo kalena amniga oo kale in wax badan ay ka qabato saxaafadda oo kale garab badan ay siiso ay noqoto saxaafadda ay xornimadooda ku ilaaliyaan isla markaasna xuquuqdooda ay ka warqabaan in shacabkooda ay mar walba ay noqdaan dad dhexgala lana sheekaysto waxyaalaha aad madaxda Soomaaliya ku arkayso waxa kamid ah hadda waxa laga yaabaa inay hooyo Soomaaliyeed oo kale hadaan tusaale u soo qaadano waxa laga yaabaa hooyo Soomaaliyeed inay badhashaba 4 caruur ama 5 caruur mataana marka waxa laga yaabaa warbaahintii soo tubinayso marka warbaahinta soo tubiso waxyaalaha ugu filan madaxda dawladda ra'iisul wasaaraha noqdo madaxweynaha noqdo gudoomiyaha baarlamaanka noqdo ama wasiirka noqdo waxa laga rabaa inuu waxyaalaha soo kale intuu tago oo ka warqabo isla markaasna uu saasoo kale uu garab ku siiyo guri u dhiso dadkaas oo kale macnaha hamiga shacabka iyo dawladda ayaa isku mid noqonaya guul ayaana la gaari karaa kalsooni badan aan la heli karaa insha Allah dawladda Soomaaliya way gaaraysaa heegsigaas badan dawladdaana waxay noqon doontaa dawladda ugu dambaysa ee waxyaalaha hadda dhiman dhamaystiri doonto oo wanaagsan insha Allah guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu kurgalaynay gulihii ugu ballaarnaa ee xukuumaddu ay gaartay sanadkii la soo dhaafay iyo sidoo kale waxa laga doonayo in xukuumadda federaalka ah ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ay higsato sanadka soo socda taas oo aan daawadayaasha ugu soo bandhignay dhammaan qodobadii aan islahayn waa ay ugu muhiimsanaayeen guulaha xukuumaddu ay gaartay sanadkii tagay barnaamijka anigoo Faisal Muuse ayaa idin xiriirinaya intaan barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo iyo sanad horumar leh